qodobkan daawada waxaan uga hadlaynaa dagaal xoogan oo haatan baan kula hadlaya ka socdo deegaanka ciid ee hoostaga gobolkaasi Shabeellaha Dhexe dagaalkan oo ay soo qaadeen kooxaha macawisley sidoo kale ay ku qaadeen ururka al-shabaab halkaasina ay ka dhalatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac balay sidoo kale in ilaa ay haatan dhaawac la kala guranaya waan kula wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay warar xasaasi ah ee dagaal haatan ka socdo deegaanka ciid ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ugu horeyn hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato sidii balanta channelka subscribe isaar muuqaalkana like saar si muuqaalada xiga ay ku soo gaaraan daawada share garee la wadaag saaxiibadaada mar kale soo dhaw aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa tahay daawade deegaanka ciid ee dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa mar kale waxa isku food saaray ururka al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada kooxaha macawisleyda ee ka barbar dagaalamo gobolkaasi Shabeellaha Dhexe dawladda federaalka Soomaaliya dagaalkan oo u dhaxeeyay macawisleyda beesha abgaal ee ka dagaalanta gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ururka al-shabaab ayaa saaka aroortii waxa ay food isdareen deegaanka ciid ee hoostaga gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ciid waxa ku sugnaa oo muddo ku sugnaa ururka al-shabaab laakiin weerar ay soo qaadeen macawisleyda ayaa saaka waxa ay ugu dhigeen cashir iyo wacdara ururka al-shabaab ayaa haatan la sheegaya in ay dhaawacooga u daldaleen sidoo kalena ay u kaxeeyeen dhinaca iyo deegaanka Califool dheere ee dhacay isla gobolkaasi Shabeellaha Dhexe dagaalkan oo ay soo qaadeen macawisleyda ayaa waxa la sheegay inay ku jarmaadeen saaka aroortii ugu dambeyn ay ka guuleysteen kooxihii shabaabka ee ku sugnaa ciid ururka al-shabaab ayaa u baxsaday dhinaca iyo deegaanka Califool dheer halkaas oo ay dhaawacyadii ugu badnaa haatan geeyeen sida wararka deegaanka ay noo sheegayaan ururka al-shabaab ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxay ciid ku sugnaayeen iyagoo dagaal xoogan ku qaaday masaajidka Cali Guduud oo aan saas ugu fogeen deegaankaasi ciid iyo sidoo kale degmada Aadan Yabaal oo ay dhawaan la wareegeen al-shabaab oo ku sugan inta badan gobolka Shabeellaha Dhexe xoogana saaray ciidamadii ugu badnaana halkaasi keenay ayaa ugu dambeyn saaka waxa ay la kulmeen wacdar ay u dhigeen macawisleyda beesha abgaal ee ka dagaalanta gobolkaasi Shabeellaha Dhexe beeshan markii hore ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay isbuuciidanba waxa lagu eedeynay inay dagaalka daacad ka ahayn sidoo kale ururka al-shabaab iyagaba la shaqeeyaan ayna doonayeen in deegaanadooda ay ururka al-shabaab laga xoreeyo maadaama ay iyaga gadaal ugu jiraan ururka al-shabaabna ay xog ka helayaan goobaha ay dagaalka ku qaadayaan saasna deegaano waaweyn iyo degmooyin Aadan Yabaalba ku jirto laga qabsaday dadkan shacabkan ee dagaalamaya ama guud ahaan macawisleydan ku dagaalameysay gobolka Shabeellaha Dhexe oo mudooyinkii ugu dambeysay lagu eedeynay in beesha madaxweyne Xasan Sheekh ee abgaal aysan ka ahayn daacad dagaalka lagu jiro ururka al-shabaab dhawaana uu ku eedeeyay Cali Jeyti Cuthmaan oo ahaa taliyaha macawisleyda ayaa mar kale waxa ay saaki dhigeen inay iska dhaqaan waxaasi iyo tuhunkaasi dadweynaha ay sheegayaan iyo siyaasiyiinta ay ku eedeynayaan iyagoo saaka aroortii dagaalkii ugu xumaa abid welina ay soo qaadeen macawisleydaasina weligood ay ka geysteen khasaaro ba'an ay u geysteen ururka al-shabaab ee ka dagaalanta gobolkaasi Shabeellaha Dhexe ciid ayay saaka ku kala heen cashir ay u dhigeen ururka al-shabaab dagaal khasaaro ba'an geystay ay ka geysteen dagaalkan oo ay ku jarmaadeen sidoo kalena ay ku dheelmadeen ayaa ugu dambeyn wuxuu dhaliyay inay ciid macawisleyda beesha abgaal oo kaligeed ay la wareegto sidoo kalena ay gacanta ku hayso ilaa ay haatan dagaal xoogan ayaa wali socdo ururka al-shabaab goobta laga xireeyay oo wali waxa ay doonayaan macawisleyda inay ka sii daba tagaan oo ay Califool dheer ugu daba tagaan Califool dheer ayaa la sheegay deegaankaasi oo isaga aan ka fogeen deegaanka Mahaday ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe in ay geeyeen dhaawaci iyo sidoo kale kooxihii ka soo dhaawacmay ururka al-shabaab dadka deegaanka oo helay xogtaasi macawisleyda ayaa mar kale waxa ay doonaysaa inay dagaal ku qaado Califool dheer si ay gabi ahaanba ugu furto balcati iyo cadale hase ahaatee weli taasi ma cadda oo ururka al-shabaab waxa ay gacanta ku hayaan degmada Aadan Yabaal oo u dhaxaysa degmooyinkaasi halkaas oo ay durgumad fiican ka heli karaan sidoo kalena xuduudda gobolka Hiiraan ay joogaan oo dhawaan ay qabsadeen deegaanka Aboorey iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo isagana Yasooman oo dagaal xoogan uu ka dhacay saaka waxa cusub ee wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen in ciid la isku laayay ciid ay ku hormareen ciidamada macawisleyda beesha abgaal ay dagaal ku qaadeen ugu dambeeyna ay ka guuleysteen ururka al-shabaab goobta ka saareen si kastaba haatee ururka al-shabaab mudooyinkii ugu dambeeyay isku urursanay gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa saaka waxa uu la kulmay khasaare xoogan oo ka dhashay dagaalka ciid ay ku soo qaadeen macawisleyda ugu tooraaday ciidamadan oo wax caawinaad ka heleen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iskood dagaal saaka ay ku jarmaadeen macawisleyda waxa ay ugu guuleysteen tiro ururka al-shabaabna ay ku dileen iyagoo dhaawacyada ururka al-shabaabna loo qaaday deegaanka Califool dheer ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe dhawaan ay ahayd markii ururka al-shabaab ay qabsadeen degmada Aadan Yabaal ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe halkaas
oo ay ugu dambeyn la wareegeen ilaa haatanba ay ku sugan yihiin hase ahaatee guruf colaadeed oo ka dhan ah ururka al-shabaab sidii mar kale looga qabsan lahaa deegaanka aadan yabaal ayaa ka socda gobolka shabeellaha dhexe macawisleyda beeshaasi ka dagaalanta gobolka shabeellaha dhexe ayay u muuqataa mid soo xoogeysanayso sidoo kalena dhiirigelin ka qaadayso dad badan oo markii hore ku eedeynayay inay iyaga ururka al-shabaab la jiraan sidoo kalena ay la shaqeeyaan maadaama ay goboladooda iyo deegaanada dhaca gobolkaas ay ururka al-shabaab ku sugan yihiin weeraro badan ay ururka shabaab soo qaadeen ay ku guuleysteen sidoo kalena degmooyin waaweyn ay ka qabsadeen ururka al-shabaab oo weli aysan dhicin in gobolkaasi shabeellaha dhexe ka hor ay qabsadaan inta bishan lagu jiro kaliya ee ururka al-shabaab dagaal badan ay soo qaadeen ay ugu guuleysteen dowladda taas dad badan oo ka duulaya ayaa ku eedeeyay in macawisleyda beeshaani abgaal ay la shaqeyso ururka al-shabaab sida uu Cali Jeyte Cuthmaan afkiisaba ku sheegay ayuu mar kale ku eedeeyay in dagaalka dadka dariskooda uu ula jeedo beeshan macawisleyda abgaal inaysan daacad ka ahayn sidoo kale iyaga laftirkooda ay ururka al-shabaab la shaqeeyaan waa suu isaga hadalka u dhigay isagoo sheegay in dagaalka si fiican loogu soo kala jeesto dhinacna loogu soo wada jeesta ururka al-shabaabna deegaanada lagu xoreeya sida uu sheegayna ay sida beesha xawaadlo oo kale beesha abgaal daacad ka noqoto dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab waa mahadsantahay daawad haddii aad intaan nala soo gaartay waxaa tahay saaxiib wanaagsan wixii warkaasi kasoo kordhay ciid iyo dagaalka lagula jiro guud ahaanba gobolka shabeellaha dhexe ururka al-shabaab halkan ayaad kala socon doontaa muuqaalkan like saara si muuqaalada xiga ay kuu soo gaaraan sheer gare oo la wadaag saaxiibadaada kuugu dhow janaalka subscribe hadduu ku waayana subscribe ii saar aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawade